hoolka dugsiga tababarka booliska ayaa la isugu keenay saraakiisha ciidamada qalabka sida oo ay hormuud u yihiin taliyayaasha ciidamada. Ujeedka ugu weyn ee kulanka ayaa ahaa sidii warbixin looga dhageysan lahaa guddi loo xil saaray isku dhacyada ciidamada qaar. Xeerlaaliyaha guud ee ciidamada oo matalaya garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa taageeray tuduc ka mid ah soo jeedinta guddiga. waxaa jiri jiray bulletin military ka sokow sarkaal heegana waxaa la jiray operative hal la waco hadii dambi dhaco. Booliisku waxay dhigi jireen hal la waco official bakeet waa imaan jireen durbaba ayaga la wareegi jiray askariga xoogga dalka ama cid dib gasha. waa laga maarmaan in la sameeyo heegankii saraakiishii gali jirtay iyo ciidankii booliiska dableyda ahaa oo diyaar ah. taliyaha ciidamada booliska ayaa u kala qaaday laba arin habka ciqaab marinta waxaana dul istaagay in uu hormuud u noqon doono sareynta sharciga. marka waxaan rabaa inaan cayimo waxna waa discipline xigada ka soo dhahda waa discipline in madaxdaadu socod salaam weys waa discipline timahaaga waxan waa discipline shaqadii waad ka maqnaata waa discipline laftigeedu laakiin amar diidda markay noqoto noocay rabtaa noqoto waa maxkamad waa boliis baan ahay markaa saarayso military baan ahayna markaa saarayso iyo dunuubta kaloo la xiriira arrintaas waxaynu badanaa aynu isku laynayno waa wax maxkamad ah horta markaynu qaadanno innagu sharcigana dhowrno anigu intaan ciidanka booliiska madaxda ka ahay ninka amar diida ee ninka sarreeya ka diida ama military ha noqdo ama booliis ha noqdo ninkaas maxkamaddu ku tagaaya maaha inaan discibliin iyo ganaaxi midna maaha ninkaas maxkamaddu ku tagaaya waxay ahaataba. jenaraal indha qarshe taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa isna meesha ka saaray inaysan jirin ciidamo ka wada tirsan dowladda oo diriro balse ay jirta marin habaabin kale. maalin su'aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi booliiska iyo militariga dagaalka dhexeeya muxuu ka yidhi waxaana militariga booliiska soomaaliya dagaalka dhexeeya ma jiro mabana jiri karo laakiin waxaa dhici kara laba askari oo midna booliis ka tirsanya midna seeriskana isdiriraan macnaheedu maaha booliiska iyo militariga isdiriray taas macnaheedu saas maaha. dadka soomaaliyeed ama dadka wariyaasha sheerana badankooda markay hadlayaan generation bay sameeyaan waa la isku tuutaalay waxaa leeyahay ciidanka militariga soomaaliyeed waa shakhsi xun wuu ku jiraa militariga booliiska militariga waa ku jiraa booliiskuna wuu ku jiraa laakiin in la isku duuduubo oo la yidhaahdo militarigasaa sameeyey dhaawac bay keenaysaa qof kastoo kalena waa ka xumaanaya oo nadiifa oo asagoo aan ku jirin booliiskuna waa nala mid in yani ayada la wada siiyo wixii xumaana la wada siiyo ma qurxoon laakiin waxaa fiican in individual laga dhigo. taliyaha ciidamada asluubta oo soo xiray kulankii maanta ayaa u sheegay saraakiisha ka kala timid qaybaha ciidamada in wixii xilligaani ka dambeeyay loo daayo howlahaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan u gaar ahayn keliya arrimaha argagixisada. ninka yidhi sarkaal booliisa yidhi waxaa tahay muxuu ahaa askari dowladda hoose kaas waxay ahayd inay jenaraal liibaan iyo kornel shuutan isa salaamaan iyo buulle raggaas inuu ag tagay ahayd ayagaa bari lahaa waxay tahay soo saas maaha. nimankaan marka aan shaqo u yeelno nimankaasoo kale aanu keliya waxaa laga barta hadda ayaa argagixisay inay xukumaan keliya soo maaha bal hadda ciidamada dhexdooda hal la arko maxkamadda ciidamada qalabka sidaa inaysan ka shaqayn oo keliya argagixiso maxaa dhacay haddaynan dishibliinkeenna iyo dhowrideenna iyo dhexdeenna iyo iska warqabkeenna isxushmaynteenna hadday lunto lama dagaalami karno muxuu ahaa cadowga dibadda lama dagaalami karno soo saas maaha. cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho.